waxaan ku werwereyna wadankiina wax u barta oo xambaara waajibkiisa dhabaha waxbarasho ee heerka jaamacadda waa mid u baahan in faham guud laga siiyo ardayda ka soo gudbaysa dugsiyada sare ee dalka. waxay jaamacadda Muqdisho u qabatay bandhiga toddobaadka dhaqanka jaamacadda oo ardayda lagu soo bandhigo waxyaabaha kala duwan ee jaamacadda ay ku baranayaan. ardaydan oo ah dufcadii 23aad ee jaamacadda Muqdisho ayaa waxa ay wax ka baran doonaan 11 kuliyadood, waxaana macallimiinta iyo maamulka jaamacadda Muqdisho munaasabad kooban ay maanta qabteen ardayda sharaxaad uga siinayeen dhaqanka iyo asluubta jaamacadda iyo siyaabaha waxbarasho ee heerka jaamacadeed. Dr. Maxamed Xasan Nuur, diiwaan hayaha guud ee jaamacadda Muqdisho, iyo Dr. Shariif Cusmaan, la taliyaha gudoomiyaha jaamacadda dhanka horumarka, ayaa ardayda cusub u sheegay waxyaabaha hor yaala. jaamacaddu waxay kala habaysaa dadka, qof walba wixii loogu talagalay ilaahay ugu talagalay oo uu ku fiican yahay inay ku hagto, ku tababarto si uu uga faa'iideysto ummadana uga faa'iideeyo. xafiisku wuxuu bixiyaa dukumiinti kasta oo ardaygu u baahan yahay. hadduu rabo in loo caddeeyo inuu jaamacadda dhigto wuu bixini, hadduu rabo transcriptigiisa oo semester inuu helo wuu heli, hadduu rabo in loo qabo taskiye ama asluub wanaag wuu ka heli. Luul Axmed Deeriye oo ku hadlaysay magaca waalidiinta oo madasha hadal kooban ka jeedisay ayaa ardayda ku dhiirigelisay heerka cusub ee waxbarashada ay u bilowday. arday adinku dadaala, hooyooyinaan nahay, aabooyinaan nahay, aadaan wax idiin gelinay, aadaan idinkugu soo dadaalnay. farxadda meeshaan ka jirta ka faa'iidaysta, wejigiina iyo maxay arday googoysaa noqonina, macallimiinta fahma. Dr. Ibraahim Maxamed Mursal, gudoomiyaha jaamacadda Muqdisho, ayaa ardayda cusub waxa uu sheekeeyay duruufihii kala duwanaa ay soo martay jaamacadda iyo marxaladii adkaa ay wax ku soo barteen dafcadii ardadani ka horreeyay, asagoo ku booriyay inay muujiyaan dhabar adeeg iyo samir maadaama ay hortaallo shaqadood fara badan. waxaana uu xasuusinayeen mustaqbalka wax u baranaya dalka iyo inaad guryihiinni kaga timaadaan maanta laga bilaabo shalay kolkaad soo gasheen jaamacadda ama aad isqorteen madaxdii qaranka, madaxdii dalka Soomaaliyeed ayaad ka mid tihiin. waa inaad isu xilqaantaan oo ilaahayna idin tuso inaad madax tihiin. waa ta koowaad ee la rabo arday wali madaxiisa inay ku jirto. waa inaad isbeddel samaysaan oo waalidkaaga iyo guriga iyo xaafadda aad degan tahay kaa dareento in isbeddel kugu dhacay oo jaamacadda Muqdisho tagtay. ardayda ayaa aad ugu faraxsanaa in xog fiican laga siiyo wadada dheer ee waxbarasho ee sugaysa. Cabdullaahi Maxamuud Amiin, Cabdullaahi Qorshe, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho.